السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردي كسر دبادة عاوية أونلاين كوليج iyo seminaarkeena ahaa critical thinking waxaan magacawnay in aan bilaabi doono seminar isla markaana kaasoo ka hadlaya critical thinking maxaa la dhahaa critical thinking muxuu yahay critical thinking maxay tahay faa'iidada isla markaas ay leedahay critical thinking kow maxaa lagu dhahay marka waxaa lagu dhahay understanding critical thinking kow ayna ahaataa mid fahansan waxa la dhahaa critical thinking maxaa la dhahaa horta critical thinking maxaa la dhahaa okay critical waa muhiim thinkingna waa fikrad ama fikir okay thinking critical thinking as a critical وفكر si muhiim ah that is oo laga jeedo ha qaadan adigoo si aan aqliyan u fikirin ama ha u fikirin si muhiim ah go'aan seminaarkeena wuxuu ka hadlayaa u fikir si muhiim ah u fikir because of aragnaa for example qof ayaa rabo ama wuxuu decision ku qaatay in uu sameysto ganacsi ama inuu bilaabo ganacsi dheh isla markaa ganacsigaasi qofkaas rabo in uu bilaabo wuxuu qabsanayaa keli meel ayuu fadhiisanayaa marka uu iska fadhiisto wuxuu dhahayaa halaas lacaga ku bixayso ganacsigaani isla markaas halaas lacag ku baxda ganacsigaanina mina halahaas wax ay noqonaysaa halaas wax ay noqonaysaa isla markaa wuxuu noqonayaa ama wuxuu fikirayaa si oo caadi ah laakiin uma fikiraayo si critical ah mar waliba aad decision qaadanaysid ha ahaatid qof ganacsi ama ha ahaatid qof individual caadi ah u fikir si critical ah ama u fikir si muhiim ah okay seminaarkeena maanta sidaa ayuu ku saabsan yahay oo ah understanding critical thinking waa inaad fahantaa ama faham waxa uu yahay in aad u fikirto si muhiim ah okay aan ka socono marka okay welcome kusoo dhawow critical thinking waxaa kusoo dhawaataa si aad ugu fikir lahayd sida muhiimka ah okay su'aasha koowaad meesha taala ayaa waxay tahay have you ever solved one problem only to realize you created a big one have you ever solved one problem only wiliga ma xalisay hal problem ama hal dhibaato kaliya wiliga ma xalisay to realize you created a bigger one isla markaasna dhibkaas yar ama halkaas dhib aad xalisay ma kuu noqday mid weyn waxaad xalisay dhibaato yar ayaa xalisay ama hal problem ayaa xalisay problemkaas aad xalisay isla markaas ayaa wuxuu noqday mid abuura mid weyn okay haddana maxaa lagu dhahay marka have you ever thought you solved the problem haddana weligaaga ma u malaysay inaad xalisay dhibaato ama laakiinse then discovered you only carried symptom and did not fix the root cause dhibaatadaasi isla markaas aad isdhahday wax xalisay ama problemka aad isdhahday wax xalisay isla markaa problemkaasi ma aragtay calaamado
isla markaas problemka aad xalisay and iyo did not fix the root cause micnaha isla markaasna ma aadan fixi gareynin xididka cause gareeya dhibaatadaasi waxaad xalisay problem ayaa isdhahday wax xalisay laakiinse problemkaasi aad isdhahday wax xalisay waxaad aragtay isla markaas calaamado jira oo problemkaas aad xalisay isla markaa waxaa ogaataa in aad samaynin waxa problemkaasi dhammaan tirtira ama fixi gareeya xididka waxaasay keenay ama problemka waxaas keenay xididkiisa ma aadan samaynin ama ma uusan noqon mid aad fixi gareysay ama tirtirtay okay isla markaas maxay tahay waxaad qabatay in aad xalisay problem markaad xalisayna problemka waxaad aragtay isla markaa calaamado jira oo problemkaas aad xalisay daadis waxay tahay micnaha ma noqon ama ma aadan samaynin mid dhibaatadaasi oo sababay mid fixi gareeya ama mid xaliya ma aadan noqon haye sababteed maxay lagu dhahay marka sababteed ayaa waxay tahay the reason these things happen in because you are not thinking critical waxaad isdhahday dhibaatada waa xalisay haddana marka aad xalisay dhibaatadii aad isdhahday waxaad aragtay weli dhibaatadii calaamado ka jira ma aadan samaynin mid calaamadahaasi ama xididkaasi noqda mid xaliya because of maxaa yeelay sababta ayaa waxay tahay ma aadan u fikirin si critical ma aadan u fikirin si muhiim ma aadan u fikirin laakiinse haddii aad ahaan lahayd mid problemkaasi xaliya kuna xaliya si muhiim waxaad noqon lahayd mid u fikiray si critical ama muhiim laakiinse hadday tahay mid ama aad samaysay problemkaasi ama dhibaatadaasi in aad xalisay haddana dhibaatadii weli ay sii jirto micnaheeda ayaa waxay tahay you are not ma aadan samaynin thinking inaad u fikirto critically si muhiim okay criticalka ama u fikiridda aad u fikiraysid si muhiimka ama si caqliyeysanka ayaa waxay tahay mindset si maskaxiyan and iyo the application of a real simple tools iyo qaabab ama tuulo ama habab isla markaasna la maro my name Abshir Abdulaziz Mudey magacayga waxaa la dhahaa Abshir Abdulaziz Mudey ayaa la dhahaa iyo I have been applying and teaching critical thinking methods for a year waxaan u baranayay ama waxaan samaynayay in aan barto si aan u fikiro si muhiim sanado isla markaa anigoo samaynaya mid across all different industries and business functions mid isla markaasna u dhaqaaqaya hadba meel ha ahaado maxaa
fikiraya magaalo iyo qaybaha business ka ba I have found waxaan soo helay this critical thinking macnaha u fikirida aan u fikirayo si muhiimka ah oo isla markaasna ah skills xirfad to be invaluable isla markaasna in ay tahay mid valuable ah qiimo leh isla markaa qiimo badan leh magacaygu waxaa la dhahaa Abshir Abdicasiis Muudey barashada aan baranayay ama waxa aan sameynayay in aan barto leh macnaha si inaan u fikiro si muhiim ah waxay ugu qaadatay sanado isla markaana anigoo u maraya meelo kala duwan ama industries kala duwan ama magaalo kala duwan iyo qaybaha business ka ba isla markaasna waxaan soo helay this critical thinking skills to be valuable waxaan soo helay isla markaasna fikirida aan u fikirayo si muhiim ah oo ah mid xirfad isla markaasna ay tahay mid qiimo leh okay isla markaa in this courses kaani ama seminar kaani isla markaa waxaan ku baran doonaa waxa ay tahay real problemka ama dhibaatada saxda ah the 5 ways iyo 5 hab this is waxay tahay the 5 ways 5 hab oo sababeyn karta iyo waxaan u mari doonaa the 7 so what's maxaa sababaya ama problemkaasi iyo blowing up the business iyo isla markaasna ah badinta businesska ah isla markaa anigoo marayna rules ah 80 ilaa iyo 20 iyo how to conduct insightful analysis isla markaasna sidee ayaan ugu dhaqannaa aragtidayna si critical ah isla markaasna aan u falanqaynaa I will discuss waxaan ka doodi doonaa how you can apply these techniques sidee ayaad u wajihi doontaa kuwaani aan soo sheegnay kuwaasoo ah xaqiiqda ama problemka meesha realka ka ah ama real problemka dhabta ah 5 ways 5 oo ah sabab aan iyo 7 what iyo 7 oo ah what maxaa ama koosgareeya dhibaatadaasi iyo blowing up the business iyo waxa sare u qaadi karaa ama badin karaa ganacsigeena iyo rules ah 8 ilaa 20 iyo maxaa kale how to conduct insightful analysis iyo sidee ayaan u dhaqannaa aragti falanqayn isla markaasna ah si critical ah ama muhiim ah isla markaa waxaan ku baran doonaa ayaa waxay yihiin ama waxaan ku doodi doono sidee ayaan u apply gareyn karnaa ama u wajihi karnaa techniqueskaasi kuwaasoo aan ku wajahayno aan ku lifaaqayno to your daily work macnaha shaqadaada maalintii aan iyo how you can build sidee ayaa u dhisi kartaa a culture dhaqan qofkaasoo ah critical thinking oo ah dhaqanka muhiimka ah within your team isla markaasna ku dhisi kartaa kooxdaada shaqo ama kooxda adiga kula shaqeysa ardayaal seminaarkeena maanta ama welcomingkeena maanta halka ayuu inoogu egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh